Trevor Jacob dhacdadiisa ayaa internetka qabsatay maalmahan. Waxaa macquul ah inuu ka soo horbaxay newskaas. A YouTuber pleads guilty to federal obstruction charges after staging a plane crash and posting the video online in an attempt to promote his channel. Ninkan la yiraahdo Trevor Jacob waa 29 jir u dhashay Mareykan, jooga dalka Mareykanka, sidoo kale YouTuber ah, pilot ah, athlete ah, skydiver iyo wax walba. Xirfado badan ayuu kulansaday ninkan. balse ninkan mucjisada ah wuxuu sameeyay waxay tahay in YouTube views uu ka helayo dartiis ama sidoo channelkiisa YouTube uu kala kacsada dartiis oo diyaarad isaga soo tuuray ayadoo hawada sare marayso kadibna diyaaradii oo kaligeed ah sida u soo socotay ay crash gareysmato oo ay burburto asagina baarashuud uu la baxo oo halkaas uu dhulka uu si nabad u ku tago 2021 ayuu YouTube channelkiisa muuqaalkan uu soo galiyay oo uu magac daray I crashed my plane ama diyaaradii ayaan burburiyay kadib dhacdadaas markii internetka ay ku faaftay oo muuqaalka uu viral uu noqday oo ugu yaraan 3 milyan ka badan ay daawatay ayaa baaritaan lagu sameeyay ninkan arintiisa markii baaritaan lagu sameeyay oo asaga la weydiiyay sababta uu waxaan u sameeyay uu ku andacooday in ay ahayd cilad ku imaaday dhanka motorka ee diyaaradda. Holy I'm over the mountains and I get out of Asia now. taas oo san waxba ka qaban karin oo sheegay inuusan si nabad ah uusan dhulka uusan diyaaradda uusan ugu dagi karin saas darteed wuxuu doorbiday ama nafsadiisa ay doorbiday in uu diyaaradda uu iska tuuro halkaasna uu baarashudkiisa kula baxo oo uu badbaado markii dhacdadan ay dhacday oo ninkan uu sameeyay arintan wuxuu sidoo kale sameeyay in arintii saaxiibkiis iyo asaga ay ku laabtaan meeshii ay dhacdada ka dhacday saas darteedna ay meeshii wixii burburkii iyo wixii ay ka nadiifiyaan Federal Aviation Administration-ka oo diyaaradaha iyo duulista hawada qaabilsan ayaa ninkan su'aalo weydiiyay oo ah sababta uu sidan u sameeyay wuxuuna ku adkaystay inay ahayd cilad ku imaaday dhanka motorka diyaaradda saas darteedna si uu naftiisa u badbaadiyo oo diyaaradda iskaga tuuray balse muddo kadib baaritaan dheer kadib wuxuu qirtay ninkan la yiraahdo Trevor Jacob in waxaas oo dhan ay ahayd fake ama wax oo YouTube ugu talagalay si uu u kala kacsado sababta ka dambaysan muuqaalka sameeyana wuxuu ku sheegay in uu ka helay company sponsorship ama wallet uu xayeysiinay dartees uu muuqaalkaas u sameeyay saasna uu career-kiisa iyo mustaqbalkiisa uu halis u geliyay uu qirtay inay ahayd waxaan wax ula kaca oo uu ka soo u sameeyay oo ay ugu talagaleen in diyaaradda uu iska soo tuuro diyaaradda sidoo kale waxa ku xirnaa kaamirooyin fara badan mid gudaha ah mid banaanka geeska ah iyo mid geeska kale ah iyo sidoo kale mid asaga uu gacanta ku watay oo markuu isu soo tuuray uu la baxay oo ku xirneed selfie stick ama usha kaamirada lagu xiro inta ay diyaaradda ay dhulka u sii socotay saaxiibka uu sii daawanayay oo uu arkayay markii diyaaradii ay burburtayna uu inkiray meesha ayada ay ku burburtay markii la weydiiyay oo ma garanayo ayuu yiri meesha ku dhacday balse uu garanayay oo waaba kii tagay asagay saaxiibkiis ay meesha cadeynta ay u baabiyaan muddo markii baaritaan lagu waday oo uu qirtay in uu waxaan uu ula kac ka waday sidoo kalena uu burburiyay wixii cadeyn ahayd oo dhan uu baabiyay waxa lagu soo oogay dambi ah in koodi hore inuu hanti uu burburiyay taasi oo ah dambi fudud balse dambiga ugu weyn oo lagu qabsaday inay tahay in cadeynta uu baabiyay taasna waxa la yiraahdaa obstruction oo ah kiis markii uu kugu socdo in wixii cadeyn kugu noqon karaan aad burburisay oo aad baabiyay dabcan obstruction kan ama xukunkaas wuxuu noqon karaa ciqaabtiisa ilaa 20 sano oo xarig bal qiyaas YouTube views aad ka helaysid dartiis in 20 sano oo xarig aad u mutaysato runtii waa dhacdo aad iyo aad u ilaaya badan internetka caalamka ay qabsatay bariyahan oo idil aad ayaana loo hadalhay waxa la filayaa Trevor Jacob in bariyaha soo socdo ama isbuucyada soo socdaba in maxkamadda soo taagi doono dambiga uu sameeyayna oo u qalmo ilaa 20 sano oo xarig ah dhacdada meesha ay ka dhacdayna waa dalka Mareykanka waliba gaar ahaan California waxaan ognahay Soomaalida badankeed inay views ay u sameeyaan waxyaalo badan oo qaar anshaxa ah aan u fiicnaan qaar naftoodana aan u fiicnaan marka commentiga waxaan wala wadaagtaa YouTuber wax walba ay macquul ka tahay inuu views dartiisa u sameeyo muuqaalkan ayuu ku yahay waa kuma sanad daawashada muuqaalka halka hada soo gaartay channel subscribe saar wiilada subscribe saaranin gambalkan furasi muuqaalaha soo dhigay ku soo gaaraan inta ku meel muuqaalka waxay kaga tahay sidaas iyo nabadgelyo